welcome. وين الدواء عابد مدحوينه ومطرك ومغلس هادو. السلام عليكم مدحوينه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. marka hore aad iyo aad baan idin salaamayaa. waxaan ka xumay qoladii dawladda loogu soo horeysay maanta inaad meesha ku caajisteen oo waxoogay waqtigeedii kaga lumay baan ka xumahay. ala ay xaal waa ogtiin safarkan inuu soconno waa tii loo jiray nacasna loo sheegi maayo fariidna waa ogay meesha lagu socdo. sadar Suudaan baynu ku soconnaa waxaynu kala qayb galaynaa xafladii dabaaldegii madax bannaanidooda ayaynu kala qayb galaynaa. sadar Suudaan marka ugu horeysa waxa weeye waa dal inoo furaya اعترافkiisu fursad weyn inoo furaya. waa ogeydeenoo taariikho badan baa Afrika ku xirxiran loo oran jiray OAU-ga ama African Organization ama ururka Afrika wadamada ka mid ah wadan xor noqon karaya ma jiro waa sidii isticmaalka ka tagay loo oran jiray. sadar Suudaan albaabay furtay waa ta ka go'day Suudaan waa ta wax iska bedelan halka qiil baa inooga soo baxay fursad weyn bay inoo tahay. midda kale sadar Suudaan waa dal kulliba taariikhisa ninkii abuuray John Grant waqtigii halkan ku jiray annaguna waa markaan halkankii aysan ku jiray Addis Ababa isugu iman jiray isaguna qadiyad gooni u lahaa annaguna mid gooni u lahayn laakiin markaanu dawladdaanu martida aan sugayno waanu soo iman jiray waana dadkeedana insha Allah waxaan rajaynaynaa iyagana maanta guul baan rajaynaynaa inaga sidaas oo kale ka rabnaa in Ilaahay inoogu guuleeyo taateeda inoogu guuleeyo. maanta haddaynu halkaa tegayno waxaynu nahay kulligan wafdigaynu ka mid nahay qadiyad quraynu wada soconnaa qadiyaddaas Somaliland inaynu iibgeyno oo dunida aynu ka iibinno ictiraafkeenna iyo rabitaankeenna ayaynu wada soconnaa kulligeen taynu wada soconnaa taa weeye inaynu ka midowno weeye inaynu meel iska wada taagno weeye cid waliba cidda aad la xidhiidho cidda aad aragto inaad uga warranto weeye. waynu soo duulay duulaanka Ilaahay nuu guuleeyay maanta uma wada soconayno iskrisaas galino hawl baynu ku jiraa hawsha aan ka soo dhaw wax ka qabano taas ummaddu inaga wada sugayso. way madaxweynaha kula kaftamo hal su'aal aan kula kaftamo su'aashaasi waxa weeye waa markii ugu horeysay madaxweynaha reer Somaliland diyaarad korkeed kala hadlo shacabka reer Somaliland halkan imika maraynaana qiyaas ahaan juqraafiyaan 820 feet baynu hawada ku jirnaa. South Sudan iyo Addis Ababa inuu dhaxaynaa maxaa dareemaysaa mudane madaxweyne? waxaan dareemayaa farxad baan dareemayaa wanaag baan dareemayaa waxaan dareemayaa kullu dhammaan qolka anaga dawlad cusub yeelmayay kullu laakiin waxaan ku faraxsanahay hawsha inuu soconno iyo intaynu ku wada soconno iyo duulaanka inuu ku jiro iyo waxaanu soo baxnay iyo shaqada inuu qabanayno ayaan aad ugu faraxsanahay. aad baad u mahadsantahay madaxweyne.